dhammaan taageerayaasha xisbiga wixii sida wanaagsan ee milkaha leh ee ay u soo dhaweeyeen madaxdoodii madaxweyne ku-xigeenkoodii aad iyo aad baan iga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga iyo xeexada kulul ee aad maanta u dhan taagnaydeen dadku waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan qolada wadaniya wixii maxaa istabadada wax iskaayo dabadooda waxa weeye dalku maanta dawlad ma leh dawlad baynu raadinayna waxaad walaalayaal ogtihiin waa maragmadoona qolihii wakiilada ee xeeldejinta ee dalkeenu ku dhisnaa ee 80 xildhibaanaan dooranay maanta ciidankii dawladda lagu wareejiyo awood baa lagu haystaa taasi waxayna tusaysaa in sharcigii dimuqraadiyaddii aynu ku kala dambaynay inay halkan ka baxda bayna tusaysaa waxaad ogtihiin in maamul badan oo iskaba socday dalkeenu soo maray oo mid walba meel wanaagsan soo gaarsiiyey laakiin maanta dalkeenu wuxuu ku dhow yahay haddaynu badbaadin weyno meel halis ayaynu ku socnaa haddii xeeldejinta iyo golaha wakiilada haddii xeeldejinta iyo golaha wakiilada ay dawladdu faraha kala bixi weydo waxaad arki doontaan inagoo gobolaysi noqnay sida Soomaaliya arki doontaan haddii dawladdu ay sharciga ilaalin weydo iyadoo mucaaradkii sharciga ilaalin maayo waxaad ogtihiin in saxaafadda la xaburiyo waxaad ogtihiin in musharaxiinta ay gobollada fiisaha u kala qaataan waxaasoo dhan waxayna tusaysaa in dimuqraadiyadda lagu tumanayo waxayna tusaysaa in dawladdu taageerayaal ayna haysan oo ay doonayso inay xisbiyada wax ku haysato ciidan taasina socon bayso walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer awdal sida milkaha leh ee inagoo midaysan aad musharaxiinta u soo dhawayseen inagoo ciidamadeen inagoo yimaadeen ciidamadana aad baan xasuusinayaa sida milkaha leh waayo madaxnimadu waa isbeddel qolada beri bay ma karaan waa inaad samaysan waa inaynaan ay boolisku ilaaliyaan borotokoolka dimuqraadiyadda maadaama dawladdii ay iyadu maanta halkay maraysi looga og yahay xaaladda dhaqandhaqaale ee gobollada awdal iyo salli waa wax laga wadagaragsan yahay laakiin booliska inay taabtaan doonaya waxa weeye doorashadii iyo dimuqraadiyadii aynu galnay siba maxay xeelaha sayda oo ilaa maanta dadkeedii huquuqayo waa shuruucdii dalka u shaqayn weyday kusan tuman maayo hadalka waxaana leeyahay arrimaha wax lagu sixi doonaa dowladda qaranka ka awdala amnigooda kor u qaadaan waa inay maaragtay waxyaabaha ay ku kacaysa kulmiye ee maanta saddexdii waaxood ee xeeldejinta iyo garsoorkii cadaaladii ay isku millaan sii badan maayo hadalka asalaamu calaykum waxaan ku xigsiinayaa dumarka iyo haweenka halkaa jooga asalaamu calaykum waxaan ugu dambaysiinayaa raggayga asalaamu calaykum horta marka ugu horraysa aad iyo aad baan idiin salaamaya reer awdal sida wanaagsan ee quruxda badan ee xushmadda leh ee kalgacaylka leh ee wanaagsan eed nagu soo dhawayseen waa mid laydinku og yahay waa mid laydinka filaayey waa mid aad ka soo baxdeen waxaan leeyahay jazaaka allahum khayran aad baad u mahadsantihiin waxaan u baahanahay maanta inaan ducaysano inoo duceeya maanta xaalad xun oo aad iyo aad u xun bay maanta aynu ku jirnaa haddaynu nahay somalilan maanta golihii wakiilada ee sharci dejintii ahayd maanta aaraadiyuba ku wareegsan waxaa la doonayaa oo ilaa xalay lagu jiray inaa la kala iibsado waxaa lagu isticmaalay intaan imaka ognahay 860,000 oo doolar baa lagu maalgeliyey inaa la dejiyo cabdiraxmaan ciro nasiib darrada ugu weynay nagu dhacday waxa weeyaan golihii guurtida ee majaraha inoo hayey ee halkaa ina soo gaadhsiiyey ee markay madaxtooyadii iyo wakiiladii isqabsadeen soo dhexgeli jiray markay asxaabtii iyo dawladdu ay isqabsadeen soo dhexgeli jirtay maanta meel
كتم بيسي مركو الشيخ إبراهيم الله نحرسته وجنتين ما وحي كتم بيسي مركو الشيخ فرع ونقد انتين سليمان قال وحن الله نحي سليمانو كنتومية قورت ذاتهاي ما تهيد كنتومية غير ما تهيد كنتومية كلمية وحتى كنتومية هقورت ذا وروح الله مثلا حاجي قاضو تحت حاجي ذا كان هذا النخوة ودارك سعيدي هايستا وحد سعيدي هايستا ودوكتهم وحلا يري النبي وحلا يري فرعون سوى كلام إنسان فرعون وكيف على مركب ثانيين وحلو يري إنا يرفع دلنايا إنا كاسو وإنا كبخرتني ماذا قادنايا مركاسو يري وحلا وحي إنا مدشا كرتها لغا قويو إما كحكومة ويفعشتي وحلا يري وعيد ما ماشا كاقاديسا دابتنا وحي لها نوعد ياني دقدقاقين قبلة ياني تاقين دادكيدا ياني وتاقين دادكي ياني صوب وخني أسكر هالهرقيو آراميو هالهرقيو ومنتي هالقحينو إذنكم محاب ما تلادين كل ميانا وحلانا هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحين السدح يوم طبعات الفرق بالمسلم كلها بيوكر بحيا هالفرق باتشنا ذاك الجلاية إياكو ما أنت تصدح طبعات كيف فرق بيوكر بحسمين وحن سوقنا بلين إنه فرق قاعد سنة وكسر بحو هذا ما ترتر مينا والسلام عليكم أنا وعن الإنسان هالبشارة الإنسان سفي عن ما يمغلسان قبل كي تقدر وحو تاقير قبل كي ساحل الدكتي بربرين اللي يبيه واتي ذا وحد بتاقير الكيسة واشرتين كيف فرنسيس كان لقصوا يبيه تركي قدام كان لقصوا يبيه واتيني قبيلة وحي كذا عارف ذكر كذا عند ديمقراطية كفا مينا واتينا لما نوعد بيننا وحا إذا كنفرا كلمية مدعوينك حقانكي دالك سيلعي أولا الشيء قبل كأوضلية السنة كسر صار عدكي وقبضنا إنو آير إسكيلا ذا محمد كاين إنو اعتراف وإلا ذا بكل يلقوا غير لك كبسك ولا تغلطكوا ومدعوينك حقانك دالك marka hadaad reer booramo cabdirashiid iyo jamaalka ee xataan halkaa ku dhacdaan weligii ka soo bixi maysan ilaahayna idinka soo saari maayo maanta waynu qaybsanaynaa talada anigu gobolkan ka soo jeedaa waa ucid gobolka jamaal waa ucid ka cabdirashiid baa maanta la maraya sanaag waa ucid way soo dhamaatay togdheer way joogaan kuwii ugu mudnaa kuwii u dhashay kuwii dhabtaa maanta way joogaan aqoon-yahanadeedu way joogaan waxaa berrinta la qabanayaa shirweynihii doonta qaran xalay waa maqlaysaan madaxweynaha talada dalka ayaa wuxuu ka lahaa waa la qabanayaa xor baynu nahay haddii la ishortaagaynana dowladda waynu ishortaagi doona cabdiraxmaan ciro qoya aad garanaysaa raggii dalka nabadda ku soo hogaamin jiray aayar baa xalay loo tashuba lacag inta laysa siiyelaya aan islaafino si baarlamaanka dalku u noqdo golo shacbi danta laga leeyana maxay tahay inay yidhahdaan doorasho baarlamaan loo baana dib loo dhigo shacabka faraha badan leh ee dhalinyaro ah ee gabdho ah ee hooyooyin ah ee odayaal ah ee bacadka iyo kulaylaha ku soo taagnaa maanta oo dhan si ay noo soo dhoweeyaan soo dhowayntoodu waa mid ku qoosanta dareen fara badan oo ay u qabaan iyo waxa ay ka arkeen halkii lala maray taladii dalka ee loogu ooyayey in la keeni doono tale ka wanaagsan tii ka horraysay ee udub waxay xaqiiqadu ku jirtaa shacabka awdal inuu yahay shacabka had iyo jeer talada somalilan ka go'do
sidaa uu idiin sheegay saaxiibkeen bedel waxa weeye maanta cod uma soconno laakiin xaaladda dalku maraysaa inaannu wacyigelin dadka u samayno oo aannu nidhaanno ha laga feejignaado meesha talada dalku marayso ayay naga ahayd xorriyaddii oo cidhiidhi la geliyey caddaaladdii oo ka dartay iyo musuq maasuq iyo maamul xumo baahday inaynan dalkani ku sii socon karin ayaa inta badan ahaa farintaan gudbinaynin ummadi sharci bay wax ku noqotaa sharci la'aanna waa lagu dumaa dawladdu sharcigii ay talada dalka ku heshay iyadaa duminaysa iyadaa faraha kula jirta laakiin waxaan maanta xusayaa runtii oon meelo kale ka sheegnay waxa la yidhi dabeer baa iyo waraaba ka baqi jiray dhegihiisuu moodayay inuu geesa yahay dabeerkii baa idhi kaale bale dhegteeda dhadhabi dabeerkii wuu cunay markii dambe waraabi baarlamaanku markii hore isagaa ilkaha iska guray isagaa sharciga u ilaalinayay dawladda u geliyey gacanta isagaa dhegta u dhigtay maanta waxaa ku dhacayaa waa wixii ay hore u bixiyeen oo ay mar dambe isleeyihiin raadiya laakiin annagu mar walba waxaan leenahay goortii aad doontiin toosa inaad sharciga u toostaan shacabku uu idinku taageeri bacad badan baad joogtaan ma jeclin inaan hadalka idinku sii badiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kalsooni ku qabnaa in taladiinnu ay noqon doonto ta dalka badbaadin doonta in codkiinnu noqon doono codka shacabka ee tala wanaagsan lagu gaadho haddii alla yidhaah waxaan u mahad celinayaa dhammaan qaybaha bulshada waxaan u mahad celinayaa ciidamada ammaanka waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhowayntayada gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka guud ahaan shacabka awdal ee boorama deganaa maanta aad baad u mahadsantihiin waxay noo ballano maalinteeda guul waa inanay indhihiin iyo dhigaynu furaadan haddii alla yidhaah awdal waxay lahayd markii dhismihii somalilan uu bilaabayey dhawaaqii somalilan burca lagaga dhawaaqay dalkan somalilan ee aanu maanta ka hadlaynaa mu jirin waxaan ugu baaqayaa wasaaradda waxbarashada inay manhajka wax ka beddesho ku soo darto shirkii boorama taariikhdiisii ay taariikhda iskuullada lagu dhigto oo 41 oday guurtida ahaa iyo dadkii ka shaqaynayay magacyadooda lagu soo liiskarayo halkaas hawl bay barteen hawl qaran bay sameeyeen wax wanaagsan bay sameeyeen anu waxaan idinku ballan qaadayaa reer awdalow cabdirashiid haddii ilaahay lagu guulayo meesha aan wada fullo inaanu noqon doonin nin maqas loo dhiibo inuu yeelan doono authority weyn oo uu ila maamuli doono dalka oo saaxiiba dalka wada maamulaya waxaan ku ballan qaadayaa in aan madaxweyne ku-xigeenkayga aanu nin kale u hanjabi karin aan qolaaba xukuumaddaba ka tirsanayn inaanu u hanjabin oo aanu odhan waxba ma aha hadalkiisa waxba saas ma aha inaanu odhan maa idinku ballan qaadaya ilaahay weeyaan waana iga daacad weeyaan runtii waxa weeyaan aniga cabdirashiidba shaqooyin wanaagsan baan haystaa niman laban baan ahayn meesha waxaan usoo baabiinay waxa iyagii oo dhan aanu idinku nimi ma aha in anagu wax idinka cunno waxaan idinku nimid inaan dalka waxba qabanaano dalka inaan badbaadino waxaan idin leeyahay maanta dalka waad aragtaan waxa ka socda inta qof walba 20 qof 30 qof baa keligaa lagaa doonay inta halkan joogta qof walba isxisaabiyo haddii kale waan ku haystaa anigii cabdirashiidba waan ku haystaa dalkeenna u badbaadino inaan musuqmaasuqa ka badbaadino in dalkeenna aynu caafimaad u samayno in ardaydeennu ay wax barato war maanta ilaah baa kugu dhaashay ninka baarlamaanka jooga ee qaadanaya lacag $10,000 $20,000 $10,000 war maanta ilaahay ka baqaniin berritooda carruur ilmahaaga aad dhashad u qaadaysid inay xaaraan tahay inay berritooda future ilmahaagaasu doonaayo oo uu doonaayo dhakhtar oo uu doonaayo iskuul uu dhigto miyaana doonayn marka aad berritooda aad wax xaaraana ku raacdid
أذكر عدد أو مريض لمرصه أو ضلك فوضى وكيرا أو ضلك هجاج وايو مسؤولية تيدا يا حاجة ميان ضاد وحين فكينا كاي بريت ولا نختار له وايو هذا كله هذا إلهي هو إلهي هو ما كيرا وروح هذا لا يا قف ولوبا قف ولو مسؤول إلهي باركاي ورو مدة سنة كداي ورقولنا من الحكم كلو ديني القف كقوة سنة كداي ورواني يجري بربر ما كان شغال وحري ودوني كتر كورة وطالع صني وأنا نقول وطلع أرجعنا وأنا أقول لك مسؤول شيء وأنا صحوية لكن وحليها وحيان درا إلا هو يرى إن كيرا أي سوق نص ساعة قاعدين نص ساعة جديد وسير كنا وسيدات نقول $1 بقول لك روس ولا كقوة برلمان كنا $1 لا روس سالوه كلافريو لأن هل كان هيحصل لك صار ودوين كي عرقابة ورد عرقابة بينها وشيء بينها وشيء وربورة ما بينها وشيء والقبيلة بينها وشيء والبربرة بينها وشيء والله أسعار بينها وشيء ورمضة وحقبته والله إذا أركاي مليونيرة ولا نقطين وطلقي واربوتين إلهي كبابه والله مدة داية وين ماتي وانشلاتي كلمية وين ماتي كلمية وحي رأي بان تعرفوا أفوسية عايدة يوحي يعرفوا في جري وين ماتي كلمية وين ماتي وطلع دلنا وديستونا وطلع بورما وديستونا هلو هيا وديستونا حيرتنا وديستونا إن شاء الله أنا أقول أكثر من الذين وضع أو دبعتها تلقوا موضة وأنا يقدر وسير الولد معي بهدلات داخل إن الولد معي وبرص عبي الناصر الولد أنا مسؤولين قالوا أمي وشرح إذا بقول كسر نوعه شرح يا ولما هذا إريرة ما أنت يا حنفت له وتي فيه نوع مرنا يقول له إذا تري اللي أنا بقول أشياء مكاساكر المسؤولة أنا بقول أشياء مكاساكر المسؤولة الدولة تنقشن بصور الرسالة يسوي حاجة دقيقة لا بقول أشياء مكاساكر تاجر تاجر بينه حاجة وانا أنا إن أتذكر أركض دورنا أفضل بقول هو يولا يقوله كانوا كتر إنه دبعت تلقون كيني يورجرين مركبا الدولة العنديرين ما أعرف أنت أصلا فورا بطلك كذا عادي عندنا ليلي مسؤولين ده دوش على سعر ما شفت حتى عند أنت أصلا مظاهرات بعد عادي أنت أصلا دبعتين ما كذا هرجيسا بيا باشي بورا ما بيلا جميلة ما بيلا وردلكي هي كمسؤول وردلكي بحلتوني يقف كمسؤول كاي إنه أقول لا هبل أنا بص عليه وكيري شغال صومع أنا روح هذي لاي أنا روح هذول مسؤولين وحياة دونين أنا جيب أنا يرى أنا جيب سافر يجينا أنا جيب أردينا أنا جيب حوجله أنا جيب ويارجنا ماله وريله هبل كل شيء تابع السلام عليكم